Maanta dunidu waxay u muuqataa mid qarax ku dhow go'aamo qarsoon dagaalo sii qarxaya iyo xog la qariyay oo hadda soo baxaysa. Su'aashu waa yaa ka dambeeya maxaa la qariyay haddii aad rabto runta dhabta ah. Ha dhaqaaqin sababtoo ah waxa aad maqli doonto waa wax laga yaabo in warbaahinta caadiga ay kuu sheegin. Kusoo dhawow channelka halka aan ka soo saarno xaqiiqda ka dambeysa wararka. Maanta waxaan si qoto dheer u falanqeyn doonaa xiisadaha sii kordhaya siraha siyaasadeed iyo waxa run ahaantii socda. Tani ma aha war caadi ah, waa run la qariyay. Qaybta koowaad, xiisadaha dagaalka. Xiisadaha caalamka ayaa gaaray heer cusub. Gobollo dhowr ah ayaa hadda galay xaalad kacsan. Wararka qaar waxay sheegayaan dhaqdhaqaaqyo militari oo aan hore loo shaacin. Laakiin su'aasha ugu weyn waa ma dagaal weyn baa soo socda. Falanqayn dalalka waaweyn waxay kordhiyeen awoodooda militari. Dhaqaale burbur ayaa laga cabsi qabaa. Isbahaysiyo cusub ayaa si qarsoodi ah u samaysmaya. Xog sir ah ayaa tilmaamaysa in qorshayaal cusub la diyaarinayo kuwaas oo bedeli kara jihada dunida. Qaybta labaad, dhaqaalaha iyo culayska. Dhinaca kale, dhaqaalaha caalamka wuxuu galay xaalad halis ah. Qiimaha shidaalka, sicir bararka iyo shaqo la'aanta waxay saameyn ku yeeshaan malaayiin qof. Falanqayn qoto dheer. Suuqyada oo aan la hubin. Lacagaha qaar ayaa hoos u dhacay. Dalal badan ayaa wajahaya cadaadis dhaqaale. Daawada, laakiin waxaa jira su'aal kale oo muhiim ah. Tani waa dhibaato dabiici ah mise waa qorshe? Qaybta saddexaad, siraha la qariyay. Qaybta ugu yaabka badan waa tan. Warar hoose ayaa sheegaya in kulamo qarsoodi ah ay ka dhaceen go'aamo waaweynna lagu gaaray meel ka baxsan indhaha shacabka. Falanqayn hogaamiyayaal ayaa kulmay si qarsoodi ah. Warbaahinta qaar ayaa qarinaysa xog dad badan ayaan ogeyn waxa dhab ahaantii socda. Daawada, marka la isku daro dhammaan qodobadan waxaa muuqata sawir aad uga weyn waxa la sheegayo. Qaybta afraad, maxaa xiga? Haddii xaaladdu sidan ku sii socoto waxaan arki karnaa dagaal sii fida, dhaqaale sii burbura, isbeddel siyaasadeed oo lama filaan ah. Laakiin weli wax walba waa suurtagal. Haddii aad rabto in aad ogaato runta ka dambeysa wararka, subscribe saar, like dheh, comment ku qor aragtidaada. Ma dagaal baan u soconnaa? Daawada, sababtoo ah halkan waxaan ku soo bandhignaa waxa dadka kale ay qarinayaan. Waa inuu muuqaalka xiga insha Allah. Maanta dunidu waxay u muuqataa mid qarax ku dhow go'aamo qarsoon dagaalo sii qarxaya iyo xog la qariyay oo hadda soo baxaysa. Su'aashu waa yaa ka dambeeya maxaa la qariyay haddii aad rabto runta dhabta ah. Ha dhaqaaqin sababtoo ah waxa aad maqli doonto waa wax laga yaabo in warbaahinta caadiga ay kuu sheegin. Kusoo dhawow channelka halka aan ka soo saarno xaqiiqda ka dambeysa wararka. Maanta waxaan si qoto dheer u falanqeyn doonaa xiisadaha sii kordhaya siraha siyaasadeed iyo waxa run ahaantii socda. Tani ma aha war caadi ah, waa run la qariyay. Qaybta koowaad, xiisadaha dagaalka. Xiisadaha caalamka ayaa gaaray heer cusub. Gobollo dhowr ah ayaa hadda galay xaalad kacsan. Wararka qaar waxay sheegayaan dhaqdhaqaaqyo militari oo aan hore loo shaacin. Laakiin su'aasha ugu weyn waa ma dagaal weyn baa soo socda. Falanqayn dalalka waaweyn waxay kordhiyeen awoodooda militari. Dhaqaale burbur ayaa laga cabsi qabaa. Isbahaysiyo cusub ayaa si qarsoodi ah u samaysmaya. Xog sir ah ayaa tilmaamaysa in qorshayaal cusub la diyaarinayo kuwaas oo bedeli kara jihada dunida. Qaybta labaad, dhaqaalaha iyo culayska. Dhinaca kale, dhaqaalaha caalamka wuxuu galay xaalad halis ah. Qiimaha shidaalka, sicir bararka iyo shaqo la'aanta waxay saameyn ku yeeshaan malaayiin qof. Falanqayn qoto dheer. Suuqyada oo aan la hubin. Lacagaha qaar ayaa hoos u dhacay. Dalal badan ayaa wajahaya cadaadis dhaqaale. Daawada, laakiin waxaa jira su'aal kale oo muhiim ah. Tani waa dhibaato dabiici ah mise waa qorshe? Qaybta saddexaad, siraha la qariyay. Qaybta ugu yaabka badan waa tan.
warar hoose ayaa sheegaya in kulamo qarsoodi ah ay ka dhaceen go'aamo waaweynna lagu gaaray meel ka baxsan indhaha shacabka. Falanqayn hogaamiyayaal ayaa kulmay si qarsoodi ah, warbaahinta qaar ayaa qarinaysa xog dad badan ayaan ogeyn waxa dhab ahaantii socda. daawada marka la isku daro dhammaan qodobadan waxaa muuqata sawir aad uga weyn waxa la sheegayo. qaybta afraad maxaa xiga? haddii xaaladdu sidan ku sii socoto waxaan arki karnaa dagaal sii fida, dhaqaale sii burbura, isbeddel siyaasadeed oo lama filaan ah, laakiin weli wax walba waa suurtagal. haddii aad rabto in aad ogaato runta ka dambeysa wararka, subscribe saar, like dheh, comment ku qor aragtidaada. ma dagaal baan u soconnaa? daawada sababtoo ah halkan waxaan ku soo bandhignaa waxa dadka kale ay qarinayaan. waa inuu muuqaalka xiga insha Allah.